السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كانالكا كيدكا إفيه muuqaalkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa wararka caalamka kanaalkan warar uguma barinina macalinka uu xanuunsan yahay midaasna waa idin ogeysiin rabay macalinka uu soo duceeyo ducadiina ayuu u baahan yahay si uu u helo caafimaad degdeg ah oo ugu soo noqdo kanaalka cashiradana oo idinkugu sii wado marka ducadu waa muhiim u soo duceeyo insha Allah qodobada wararka ugu muhiimsan aan idin hayno waxa weeye diyaaradaha Israa'iil oo duqeymo ku beegsaday iskuul ku yaala bartamaha Gaza iyo warar dheeraad ah oo ka soo baxaya madaxweynihii hore ee dalka Peru oo geeriyooday labadaas qodob ayaan ku qaadaa dhigi doonaa warkeena maanta ku soo dhawaada muuqaalkana sare u qaada like-tina waa muhiim hadaa ku cusub tahay channelka subscribe saar muuqaalka sare inoogu qaad intaas aan idinka codsanaya insha Allah qodobka ugu hore aan soo qaadanayna waxa weeye weerarka ay geysteen Israa'iiliyiinta ee ku qaadeen iskuul ku yaala Gaza madaxweynaha qaramada midoobay ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay weerarka cirka ah oo ay Israa'iil ku qaaday dhismo dugsi oo ku yaala bartamaha Gaza halkaas oo lagu dilay 6 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsanaa qaxootiga Falastiiniyiinta hay'adda UNRWA waxay sheegtay in uu ahaa weerarkii kaliya ee ugu dhimashada badnaa ee shaqaalaheeda ka soo gaara tan iyo markii uu bilowday dagaalka iskuul ku yaala Nusayrat ayaa laga geystay weeraro gantaalo ah oo soo noqnoqday tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay iyadoo dalka ay ku nool yihiin kumanaan Falastiiniyiin ah oo barakacayaal ah Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay falka halka ka dhacay in ay tahay xadgudub halis ah oo lagu sameeyay sharciga caalamiga ah ee xuquuqda bini'aadamka wuxuu ku baaqay in la joojiyo weerarada militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay bartilmaameedsanayeen dagaalyahanada Xamaas ee halkaas ka howlgala xarun ku taala aagaas bilihii la soo dhaafay Israa'iil waxay garaacday tiro dugsiyo ah oo ku yaala Gaza kuwaas oo xarun u noqday Falastiiniyiinta soo barakacaya madaxweynihii hore ee dalka Peru Alberto Fujimori oo lagu helay dambiyo ka dhana xuquuqul insaanka iyo musuqmaasuqa ayaa geeriyooday isagoo 86 jir ah sida ay xaqiijisay gabar uu dhalay Fujimori waxa uu xukumayay Peru intii u dhaxaysay 1990 ilaa 2000 ka hor inta aan lagu qasbin in uu xilka ka dego sabab la xiriira musuqmaasuqa talaabooyinka adag ee uu ka qaaday falaagada Moisit markii hogaamiyaha ka ahaa dalkiisa waxay sababtay in lagu eedeeyo xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha si kastaba ha ahaatee taageerayaashiisa ayaa ku amaanay qaabkii uu u burburiyay jabhadda markay u muuqdeen in ay la wareegaan xukunka dalka Peru gabadhiisa ayaa ku baahisay baraha bulshada in madaxweynihii hore ee Peru uu u dhintay cudurka kansarka waxay madaxweynuhu ku heshay dambiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq kaliya-talisnimo iyo ku lug lahaanshaha xasuuqii sagaashameeyadii gaar ahaan caburintii jabhadda Moisit warkeena halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka insha Allah halkan ayaan kusoo gudbin doonaa midda kale macalinka ha loo duceeyo ducadiina muhiim ayay inoo tahay u soo duceeya si uu caafimaado oo dib ugu soo noqdo cashiradii oo idiin soo bandhigayay ama cashiradii taxanaha ahaa soo marka ducadiina in loo aqbalaa macquula u soo duceeyo insha Allah muuqaalkana meel sare gaarsiiya like gareeya kanaalkana sare u qaada insha Allah wararka caalamkan insha Allah halkan ayaan ku soo gudbin doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan kaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh